xafladan oo loo qabtay 100 dhalinyaro ah oo dhameystay tababar qaatay muddo 2 sano ah oo ay ku barteen dhismaha guryaha iyo sameynta bulokeytiga guryaha lagu dhiso ayaa waxa ka qayb galay mudanaha baarlamaanka heer federaal ee laga soo doorto deegaanka Dadaab Dr. Maxamed Daahiye Ducaale madaxda hay'adaha samafalka ee Peacewin Japan IOM iyo RRDO mas'uuliyiinta magaalada Dadaab iyo dadweyne kale tababarkan oo la siiyay 100 dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka soo jeeda deegaanada martigeliyay qaxootiga Soomaaliyeed ee Faafi iyo Dadaab ayaa looga gol leeyahay in dhalinyarada lagu baro xirfado ay mustaqbalka ku shaqaysan karaan kuna maareyn karaan noloshooda dadkii ka qayb galay munaasabada iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii qalin jabisay ayaa u mahadnaqay hay'adaha Peacewin Japan IOM iyo RRDO oo iska kaashaday in la tayeeyo dhalinyarada deegaanada Faafi iyo Dadaab خاصة waxaan rabaa inaan u mahadnaqo gabdhaha runtii waa shaqo adag weynana tuseen intaan soo wareegnay inta shaqo meesha ka qabsan hay'adda Japaaniiska RRDO ardayda iyo dhammaan arrintan dadkii ka qayb qaatay oo ka hawlgeliyeen waxaan khaasatan u mahadnaqay ardayda Peacewin Japan ciyaalka ilmaheenna waxaan u sheegaynaa haddii reefaaf yihiin haddii reedhaab yihiinba arrintan iyada ah inay si fiican gacan weyn uga geystaan sidii lagu suuq gelin lahaa ee looga shaqeyn lahaa dadka mas'uuliyiinta ah yaan hor fadhiyan maanta sida Mheshimiwa Maxamed Daahiye iyo ninka la dhaho Axmed Shita aad mahadsantihiin mashruucana waan soo dhaweynayaa waxaa muhiim ah oo maanta wax kale oo la tartaba ka si fiican dhalinyarada marka hore la xamanahay ilaa waxa ma qabsanayaan inay maanta arrintan la imaadaan وأنا أدنى فرح جلسة وحنا عرقنا خفرتك سنة وقعوتك إن لدى جنا دلنيرة إن أنا كنت جبنا هذا شقينا ورنا ورس الله ما عرقنا وحنا دلنيرة الحمر والبايع وحنا قبسن كرن أما دلنيرة هرم صلام بالله لكن ما أنت دلنيرة هاد بينو فرح جليان وحنا ما هاد وعلنا وكله هاي الدار الريو هاي التبسون وحنا هاي gabar maadaama Soomaalidu ay gabdhaha ay ku kalsooneen in guriga dhistaan aniga guriga hadda hal dhijira waan dhisan karaa waan ku kalsoonahay inaan ani iyo qeyrkaygu u dhisi karo dadka muslimiinta ah Peacewin way mahadsantahay wax nagu soo bartay programkan 2 sano baan soo wadnay maanta aan ku qalin jabinaynaa way ku mansan yihiin Peacewin Japan ay waxna soo bartay ay wax badan oo soo faa'iideysay waan baranay bulkeedka SBC loo dhaliyaan baranay haddana waxaan rabnaa inay horeyno si wado inta ay nagu dhaafin Ali Abdi Bedel oo sarkaal ka tirsan hay'adda Peacewin Japan ayaa ka warbixiyay muhiimadda mashruucan dhalinyarada lagu barayo xirfadda dhismaha guryaha iyo waxyaabaha la xidhiidha programkan la dhaho ISSP Interlocking Stabilized Soil oo host community Faafi iyo Dadaab aan in badan ka soo wadnay hay'adda Peacewin iyo hay'adda RRDO iskaashanayaan juhdi badan bay geliyeen barnaamijkan maantana meesha ugu fiicnayd oo qof bini'aadan la soo gaarsiiyay ayuu soo gaaray oo aan marayno graduationki muhiimadda programkan number 1 waxay ahayd in dhalinyarta la baro life skill training in la baro farsamo gacanta oo maartay mustaqbalka ay rabaan inay noloshooda uga faa'iideystaan number 2 in la helo source of income in la helo livelihood program oo dhalinyarta markay bartaan ay shaqo ay helaan shaqo abuur ay helaan programka saddexaad waxa uu ujeedadiisa wax loo environmental in lagu badbaadiyo dhirta iyo ma garanaysaa bee'ada in badan la isticmaalayo la jiray in lagu badbaadiyo maanta waxaan tababarnay oo qalin jabisay 100 cunug baan u bilownaa tababarkan laakiin maanta wuxuu u dhamaaday 98 cunug 98 student waxaa la baray technical training sida bulkeetiga loo soo saaro sida dhismaha loo sameeyo tayada bulkeetiga sida loo ilaaliyo sida loo suuq geeyo Axmed Abdullahi Jaamac Axmed Deere Maakhir Cable TV xiriyaha Dadaab